Asalaamu calaykum saaxiibada inagu xiran soo dhawaada idil ahaantiin videogeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa xog kooban oo aan uga hadlayo sidee ayay China ku awooday inay ku dhisto isbitaal muddo 10 maalin ah. Dhammaadkii sanadkii 2019 waxaa magaalada Wuhan ee dalka China ka dilaacay cudur halis ah kaasoo loo yaqaano coronavirus ama COVID-19 kaasoo markii dambena dunida inteeda kale aad u saameeyay. Magaalada Wuhan tirada dadka qaba cudurka oo aad u kordhaya awgeed ayaa dowladda China waxa ay go'aamisay in la dhiso isbitaallo emergency ah kuwaas oo lagu dhisayo muddo kooban ama waqti yar. Isbitaallada dowladda ay go'aamisay in la dhiso waxa ay kala hayeen laba isbitaal oo aan waqti badan u dhaxaynin. Mid waxa la dhihi jiray kan hore Huoshanshan, kan kalena waxa la dhihi jiray Leishanshan. Isbitaalka Huoshanshan marka waa mid ka mid ah labada isbitaal oo ay go'aamisay dowladda China in lagu soo koobo waqti kooban oo ah 10 maalin. Huoshanshan area ahaan ama badka uu ku fadhiyo waxay ahayd 60,000 square meter waxa uu qaaday 1,000 sariir. Labada isbitaal oo aan design ahaan ama naqshad aan u kala fogeen waxa ay ku bees gareysnaayeen shaqadahooda. Isbitaal hadda ka hor la dhisay xilligii 2003 xilligaas oo wadankaas sidoo kale uu ka dilaac cudur respiratory systemka ku dhaca ama neef mareenka oo loo aqoon jiray SARS waa virus. Waxaana isbitaalkaas la dhihi jiray xilligaas la dhisay Shaotangshan. Isbitaalka Huoshanshan waxa dhismihiisa la bilaabay January 23 sanadkii 2020 waxaana la bilaabay xilligaas diyaarinta halka wax laga dhisi lahaa ama goobta dhismaha laga bilaabi lahaa sida in la geliyo bulldozerska, excavators iyo gawaarida kale ama mashiinada kale loogu talagalay dhulka in lagu qodo ama geedaha looga jaro ama dhagaxdo kale lagu jabiyo. Waxaa ku xigay dhismaha aas adag oo loogu talagalay in uu yeesho isbitaalka. Haddaan isla fiirin marka aas-aaska dhismaha salka ugu hooseeya aas-aaska waxaa la dhigay 20 cm oo carro ah. Kadib waxaa lagu xijiyay lakab waxa loo yaqaano geotextile. Kadib waxaa lagu xijiyay lakab kale oo plastic ah. Waxaa lagu xijiyay lakab kale oo geotextile ah. Waxaa lagu xijiyay lakab kale oo carro ah. Kadibna waxaa la shubay shubkii caadiga ahaa kaasoo maalmo kooban kadib dried noqday ama ku adkaaday. Waxaa waqti kooban la taagay dhismaha isbitaalkan. Waxaa suurtageliyay arrintan ayaa ah isticmaalka waxa loo yaqaano prefabricated elements. Fikradu waxa ay tahay in goobta wax laga dhisayo goob aan ahayn sida warshad oo kale in lagu soo sameeyo walxaha guriga uu ka kooban yahay. Guri kasta wuxuu ka kooban yahay ama wuxuu leeyahay qalfoof uu ku taagan yahay sida tiirarka iyo wixii la midka ah. In elementiyadaas oo dhan banaanka lagu soo diyaariyo oo warshad ay soo sameyso. Tan kale oo aan rabno inaan ku baraarugsanaan waxay tahay structure-kani waa steel structure waa bir ayuu ka samaysan yahay. Quality-gooda iyo waxooda dhanna warshada lagu soo diyaarinayo ayaa ka mas'uula. Soo marka elementiyadaas markii la soo diyaar gareeyay kadib ayaa waxa lagu sameyn doonaa shipping ama in la keeno goobtii site-ka ahayd oo wax laga dhisayay. January 27 afar beri kadib markii aas-aaskii la soo dhameeyay iyo howlihii la xiriiray ee dhulka laga qabanayay kadib ayaa waxaa la bilaabay in la taago dhismaha caadiga ah ama qalfoofta ayaa guriga lagu bilaabaa. Qalfoofta guriga waxa waaye waa tiirkii beamka waxa uu naqaana ama taraawaha sidoo kale floorka waxa la dhaho ama sagxadda slabna waa la dhahaa markii macnaha engineering terminology markii la fiiriyo. Waxyaalahaas marka guriga qalfoofta u ah shape-ka ay qaadan doonaan markii la sameeyo waxa waaye as a container ama shay container oo kale ayuu ekaanaya. Containerkaas marka waxa uu ka kooban yahay sagxad, saqaf, tiirarka oo gees walba ama meel kasta oo support looga baahan yahay ku jira. January marka 28keedii 29keedii ilaa 30keedii waxaa la qabtay shaqadii ugu muhiimsanayd oo ahayd in qalfooftii la taajiyo la dhameystiro sidoo kale darbiyada lagu install gareeyo ama lagu rakibo. Iyo sidoo kale wixii albaab ama daaqad ahay sameyntoodii ayaa meeshaas lagu soo idleeyay. 31 January 1 February 2 February waxaa la qabtay qalabeynta isbitaalka maadaama markii hore qolal empty ama bannaan meeshii yaaleen in la qalabeeyo oo wixii power koronto ah ama biyeyn ah ama ventilation systemkii hawada keenay bixinayay medical equipment-igi ama qalabka caafimaadka loogu talagalo idin nooc walba raba ahaado ayaa lagu qalabeeyay. Sidoo kale waqtigaas waxaa la qabtay in la jeegareeyo systemyada oo dhan inay shaqeynayaan si loo ogaado ama loo hubiyo in isbitaalka diyaar u yahay in bukaanno uu qaabilo ama dadka lagu dabiibo. Sidoo kale 3 February waxaa la qaabilay bukaankii ugu horeeyay maadaama meesha qalabeysan tahay haddana ay diyaar u tahay in lagu howlgalo. Waxaana medical staff-ki ama shaqaalaha caafimaadka oo dhan ayaa yimid sidaas ayuuna ku howlgalay isbitaalkii. Waxaa ku xigay 3 maalin kadib waxaa sidoo kale la dhisay isbitaalka kale oo loo yaqaano Leishanshan. Isbitaalka marka baaxad ahaan uu ka weyn yahay area ahaan waxaa lagu sheegay inuu 75,000 oo square meter wuxuuna qaadayay 1,600 oo sariiro ah.
waana isku design isbitaalka hadda aan kasoo sheekeyno kale ayuu ku design yahay wax weyn ugama duwana. waa mahadsantiin saaxiib halkan aan kusoo gabagabeynaa.